السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي إذا كحرم بالخير أحمد جنة ضمانتين هذا ومهسنتين وان إيدي السلامي ميرو البعض جوكتان دنيا دعالة ذات كجوكتان صومالي محمد ميرو بيجوكتان حالي هذا ومهسنتين وفتوري وحي دنبي الله نقع فيو انتي ومدي وحي مقالدي مالمها لو وريجينا شرعي ما انت كدن باودنا وحالي هاي دنبي جاس إلهي نقود عفيو أنا الله نقع فيو وحسك هاي وحسك ما لا يعني horta muuqaaladii waxaan arkay la qaaday oo janalo badan ay qaateen oo ay dhahayaan fadeexada dhacday musiiba soo degtay guriga cidii naaga kala kicisay oo oday xataa la dhahayo waxay baro naag kale to horta waxaan leeyahay asxaabi aad u mahadsantiin adinkana dambiga Allah idinka cafiyo annagana Allah naga cafiyo waxaasna wax ka jira ma lahan aniga gurigeyga waa in wad qaba ilaahay intuu igu talagalo in wad qabaya insha Allah odaygana oday qiimo leh waa isa horaba idinku sheegay ma ahan waxaas ka suurtoobaan marka waxaan leeyahay waxaas sheekayska ahayd branki ahayd ma fahanteen horta hore aad u maastin igan raal noqdo waa markii ugu horeysay ee branki aan sameeyno aniga ilhaanba aan xayatay brankigaas aan isla ogeyn oo aan sameeyeen dad badan oo horti soo wacay luuq ugu wada sheegay oo ku dhahay sheeka soo branki maadaama dadkii aan arkay inay naxsan yihiin anigana waa sii wadi karay laakiin waxaan ka naxay in xayatay dadku sidii ay dareenkooda ama ugu falceliyeen ama si jaaifada dadka wada gaarayso gabadhiina la jaaifeynayo odaygayna asna dhinac ugu jiro jaaifadii anigana dadkii dhan aniga ila wada duubteen ila wada xanaaqeen marka waxaas dhaawixii dambiyo ka sii socda dambigaas adigoo ku sii soconaya inta uu aniga qaladaad umaduna ay dambaabi lahayd aniga ninkaygana oo noqon lahay qof asna qeyr masuul laga dhigi lahay mar ragga qaar lagu tilmaamo sidoo kale lagu tilmaami lahay waxaas dhahay ma fiicna intaan inuu kula sii dhaafaa baraanki dambana uunaba aananba soo sameynba oo noocaas ama noocu doonaba ahaadaba baraankiyada walba wax fiican markii hore uma usanayn haddana markii halkan ay ila gashay baashi waan ka yara diiday ma fahanteen asxaabi aad u mahadsantiin waxaas baraanki ahaayeen ilaahna gabar walaasheeyo qiimo leh oo sharaf leh oo aan waxaas aan marnaba ka suurtagelinin nuguna sameynin ee ka suurtagelin gabar kalena inay u geysanayso uma leeyahay aan maayo si wanaag oo qiimo iyo sharaf qeeyay ku dhaantay noogu imaatay inala noola joogtay bil dhalato dhamaataan wada ceesheen oo wada joognay ilaahay idinkiis anagoo sidii isku jeclaana halkaas aan airportka sagootinay oo halkaas aan ku dirnay doo ilaahay idmo waxaan branki dadkaana bilaabo sheekadan macnaha anagu waxaan bilaabnay in sababta dadka bilaabay waxay sameeyeen riwaayadii goos ka soo sameeyeen aniga Yusuf sawiradeena soo qaateen ilaani wixii balqar Axmed oo lala guursado soo wixii umadii markii wixii wareegaysa arag Soomaaliduna walaalayaal wax negative ka jeceliin wax positive ka ma jeclo sababtoo ah muuqaal hadaa soo dhigtid maanta wax qeyr la ma faa'iido ama Allah ma jaajiluga halis qofku daawanayso male hadii intii yarta halkii muuqaalan soo dhigan waa la yaabo umadii wax dhibaato ka dhacayso iyo marka adinkuna dambiga waxaad ku leedihiin anaguna waxaan ku leenahay kalama liidana macna kalama liidasho oo roobidimada maqli jir hadii aan inta anigu YouTube-kayga wax soo dhigay warigay ma arag sidaan YouTube-kayga maanta loo daawado inta loo daawado waa aan sii wadi karo anigu views-kaas waan sii wadan karay laakiin waxay ila noqotay wax fool xun macnaha ummadii dhan been dadka bulshada ku dhex faafinaysa noqotay haddana YouTube kale ka ceeshaya arkay marka wax laga ceesho badan walaalayaal oo wax qeyrka oo aan idin wadna ama waxyaabaha faa'iido ku jirto ummadda wacdiyada iyo quraamada soo gelinaysa daawada mid labaad anagu waxa aan faa'iidada inoo majaajilaha ama si waxtarka idin lahana daawada hadaawanina kaliya waxa negative ka laba qof halkaas isku caysay laba naago isku dhagan nin naaga laba naagooda nin isku haysato foolxumadii waa sii faafinaysiin wanaagina faafinaysiin hadda calaay xalaniga jawaab baraawi Soomaali waan baraawiyan ku dhahay baraabadiina waa aad soo gasheen oo horeeto meelaha uun baan ka arki jiray laakiin maanta YouTube-kayga ku baraawi hadal yar aan soo dhigo weligay dadaan aan isoo qaadan ina aan u maleehin ina yaqaanin xataa aan u maleey jirinin YouTube-kayga maanta ku soo dhag oo dhahayo balqar Axmed oo ninkii naag loo guursado balqar Axmed oo naagtii xaytiin xaragaaheed ee ninkii ka dul qaaday balqar Axmed oo qarac ilaahay amurtis badana ma aan u maleehin inta astaghfirullah walaalayaal seeflaboodnimada iska daayirto marka koowaad ya marka labaadna qeyrka faafiya sida anaga aad waxaan xunka oo maalayacniga aad u faafiseen waxyaabaha wanaagsan u faafiya oo anagana dhiirigeliyo waxyaabaha wanaaga nagu dhiirigeliya xumaatada nagu dhiirigeliya aan horta mar dambe waxaan kala soo duumay maanta intaan ha iga ekaato ilhaana waa gabar walaashay qiimo leh intii horta caysa waxaan leeyahay dambigiina Allah dhaafo sababtoo ah sababana oo ahay waxaan leeyahay intii cayso dhan oo cays anigana hay soo caayinina oo hadeenina naya beenaleeyay wax sax iska ahayd branki iska ahayd oo
adinkan dambiga waxaa ku leedihiin ilaahay intii caaysa dambigeeda allaha dhaafo ninkayga intuu u gaftana dambigeeda allaha dhaafo dambigiina allaha dhaafo ninkayga san hore idinkugu sheega waa 4 naaga ilaahay u baneeyey waa nin macnaha mas-uuliyad qaadi karo oo nin mas-uul ah oo waxaan ku dhahay nin rageed ah midda labaad anigana gabar waxaan ahay diin iyo dhaqan ku awooday oo aan maanta ahayn naag xeehatay intaas social media la soo fadhiistay ninkeeda doo naag la guursadaa ma ihi macnaha gayaankayga ka weyn ninkayga aniga doo naag la guursadaa si wanaagsan aan ku wada dhaqmeynaa wanaagu noloshu in la wada joogana waa wanaag in la kala tagana waa wanaag laakiin gurigii horena waad ku sheegay haddana ay sheegaan naagna kulama watalinaayo gurigeeda inay naag u dumisaa guriga aniga hadaa dhahdid xataa naag ha soo dhaweysan naag lama aamino waa run naag lama aamino midda guriga kula joogto cuntada kula cunaysaa ninkaaga ka hoos qaadayso laakiin taasna calaf oo qoran wixii calaf qorama diidi kara ya saasay tahayna aniga riwaayadan iyo inaan riwaayad jilo aan riwaayad jilo waan deemayde waan sii wada ma fahantiin naag aniga ma ihi marka waan horaan in ku sheegay ninkeeda ka shakisa anigu ninkeyga kama shaki qabo waligeyna kama ana shaki noloshayda inta hadda wada nool waligey hal habeen ama naagtan oo riwaayada kula jilayso oo ninkaaga shukaansana never ima soo gelinin hadda kadibna inaysan gelina ilaahay ka rajeynaya marka mana noqon doono naag gurigeeda u burburisa naag kale ilaahna haba sheegan badal ilahan waa gabar walaa sheego marti noo heedo magaaladan dalxiis u maatay dalxiiskii daneeda marka dhameystana tagtay insha Allah ilaahay duu soo celin soo noqonayso daneeda u soo noqonayso ninkeygana waxaan idin dhahay waad saa sheegteen waa nin mas-uula adinkana waa aad soo ammaantiin aada ugu mahadsantihiin dad kale too Soomaaliyeed youtuberada wax qaatina waxa adinkana sidoo kale idinka rajeynaa hortoor aada ugu mahadsantihiin inaad soo qaadataan waxaan ilaahay dambigiina Allah cafiyo adinkana anaga keenana Allah cafiyo walaha ku dhahay walaalayaal soo hadda noo daawanaysaan oo hadda muuqaalkan aad u daawateen ii daawada si aan waxyaabaha wanaaga u soo geliyo waxyaabaha xumaanta hadiira gelina sababta hadaan qalad ma ku leeyahay adinka daawo way muuqaalkayga no anigana sasan aan branking ku sameeyay ma fahanteen ilaahna waa gabar walaashay qiimo leh oo qaaya leh oo ilaa iyo waxaan ku dhahay udabilahan isna qaanayo qofka waxa dhahay maalin ku barweysa bil kuma baratid maalintii koowaad iyo maalintii labaad bishii aan wada nooleynaan baranay qof noocaas oo shaqo jaamada noocaas shaqo jaanimo noocaas ku dhaqantamaan ninkeygana maba ku sii jiro ilaahay xaq ka sii xigaa waa nin qaran saa hore in kugu sheegay oo nin mas'uul ah gabar kasta jecel Yuusuf inay macnaha ay nolosha la wadaagtaa sababtoo ah qof kasto geeyana sida anigu aan u soo xushay wuxuu jecel yahay qof wanaagsan inuu xusho qof maadaama qof wanaagsan yahay qof wanaagsan qof kasta jecel ma baantiin marka ceeb ma aha Yuusuf in la jeclaada ceeb ma Yuusuf in wax jeclaada laakiin waxa ceeb ah in si qaladaada ama si akhlaaq darro YouTube la soo fadhiista waligeeda naag guursa jir waligeeda naag maseeri jirtay waligeeda naag ninka dabageli jirtay waligeeda naag nin ka dul qaadi jirtay ceeb ma laakiin ceeb waxa ah in YouTube ka aan la soo fadhiisana ninkii naag guursa baba naagtaas xunta ninka iga dhacda aniga horan uma aan dhihin naagta nin iga dhacdo laakiin aniga maalin hore taa waxaan dhahay ilaahna YouTube ka ku soo fadhiisana dadkii aan de wixii keenay Soomaali waxa taqaana wax loo bilaabay wax ay joojinayso ma fahantiin marka Soomaaliya ay noqonina dad negative ka bis qaata ee waxa noqotaan dad xeehetay positive kana qaata oo wixii wanaaga ah oo qurux badan oo dhan xeeheto share gareeya oo dadka views ka siiya si dadka wanaagsan oo dadku hadda waxyaabaha qaldan oo dhan sameynaya adinka ku kalifay sababta qofka hadduu halka inta soo fadhiisto maanta sheeko xariir idinkaga sheekay ama caraweele idinkaga sheekay oo dabiiqay ama idinkaga sheekay xadiis iyo aayad idinkaga sheekay ka yeeli maysan de wax weyn ma jira xadiis iyo aayad culimada xataa youtube-da soo fiiriya walaalayaal wax daawanaya male haddaad maanta dad qof ku soo dhagana waxa ay daawanayso malaayiin qof 1 milyan qof ina maanta ugu soo xirantaa laga yaaba waxa 2 sano waxaan soo wada YouTube-kaas 2 sano aan soo wadana 100,000 subscribe hadda tan ya Allah ya naftu gaar shalay bis oo ha muuqaal soo dhigana inta kuna subscribe soo dirtay ilaahay bisa loo sheega maxaa dhacay maxaa xumaatada dadku ugu dhiira gelinaysan hadda aniga qalad aan leedahay ma ileedin marka adinku xumaatada waa wadaan aniga qalad ka leeyahay maxay hadii ilaahay nin guursataan iga dul qaata qalad ay leedahay ma leedahay sababta markii ay soo sheegtay waa sii qaadaysiin haddaan adinkan aad shib u dhihi leedana muuqaalka intaad fiirsin aad halkaas ku wada blog leedeen qofkaas ama subscribe qofkii xumaan fuuqbiya subscribe ka laaban leedeen waxa la dhihi lahaa ay xayaato qof kale qof xumaan sameeyay lama arkin qofkii wanaag sameeyay haddaad views leedna dadka dhan wanaagay sameeyay lahayn laakiin qofkii wanaag sameeyay views lama sii qofkii xumaan sameeyna malaayiin la sii hadhowdin qofkii waa la caaya qof xunaatay faamil xunaatiin faamil qurnaatiin faamil uskagaatiin da uskaga adinka dad ka dhigay qaladkiina qaata soo wada qor anaga qaldan commentiga dan ha laga wada arko in adinku qaldan tihiin
sababtoo ah wixii wanaagsan ma daawatiin wixii xuna daawatiin haddana adinka dad ku caayo Soomaalida waxa maqli jir wixii cashii lagu wixii casirka lagu arkay cashii lagu caaya aniga hadaan casirka ku soo duubo wanaag cashii hal xabo comment waxa laga yaabaa 20 qof inay comment ii soo qorto waa 20 wanaagsan de boqolkii kale waa wada xun haddaan maanta waxaan soo qorna boqol iska dhaafay 3,000 oo qof comment iga soo baxay saacad gudaheed 24 saac laga soo wareegina 300 qof ay soo dhiibayso comment war comment ku dhiilayaal hana qanina comment macnaha hana qanina xayaato dadka wanaaga wax maanta bis share gareey hana qanina dadka wanaaga share gareey noqo aniga maanta hadaan hadal murtili ku sheego ii share gareey anigana waxa ii naqanaysaa fiyuus ii naqane oo waxa wax tar ii noqonay wax taranka ilaaya dhiirigelina ii noqonay wax kale aan iga soo maaxaribin oo iga soo maaxanaya hada calaa xal waxa hadalkaas uu dhamaaday intii hore wax uga heshay fiyuus ku raasatana falillahi alhamdu Allah idin khayr geliyo dambigiina Allah dhaafo intii hadda kadib usoo jilba jabsatay macnaha ka faa'iideysi iyo war suuq la geliyana walaalayaal halkaas ku dhamaatay waxaas waxay ahaayeen prank oo waliba serious ah oo leen kaga dhiga run oo la prank waxay ahayd guriga dhexdiisa aan ku sameeynay oo qof guriga ii imaanaya aan sameeyna la sameeyo aan dhaho kaamiradan u qarsaday laakiin tan prank aan adinka si live idin kugu sameeynay naqatay هذا ما سنتين صابته هذيك هذا كبران كسمة مقال هدي عن صادق إنه تيك يوتيوب أو شركة روايد واسوي يسين لوقا سودي يسين بالقارة أحمد دي حياتي إن أنا حرقه بالقارة السوري ما أنا رتو ده كم لوقا واحد يصدره الهان يوسف أو شركة جل شركة أنا أنا وهاي حال ده أن كاميرا أن هاي لوقا يصدره مركا واحد فيري واحد سبب كان أكتر ما حكى غلطان أنا أبغى أقانا بالشركة دول سير فرتي دونا أنا القراء فرتان دونتين أيضا لقرنا مركا آلا وما سنتين إلى هنا الدم بيجا صحوكم لهن صابتوا ما بقينا ننا اسمين أنا أركين إن ده يوسفنا ويل ولا كذا أستاذ كذا مرنا قيمة سمرنا أيضا أنا قال جمد إنه واي يوسفنا ده إنه عصور رقم ما أنا وقفيننا أنتي قرضنا ده أنا وقعتها ده صابتوا أنا قال شيء كذا مركور بلاوي ولا يوسفو سيقول ده يودي جوج لا لقى كلام ده oo aan ognahay aadinkuna ogtiin anaan ogaay oo waxaba idin ka qarsan inay kafsanto aan dhahay mid deynayna ad meesha awarka si qaqaday ilaahna muuqaal ay soo duubtay ana og muuqaalka ayadana ay ogtahay do asla hadlayna 4 saac ma fahanteen marka intii waxaan ku dhahay ka xumaatana aad u maasintiin intii ilaahna waxaan ku dhahay caysana Allah dambigiina cafiyo waa ilaahay dambi dhaaf idin weydiiyayna anagana halkaas ilaahay dambigeena ku cafiyo oo wixii been oo sheegna Allah naga cafiyo dambi beento waa xaraan sidoo banaan ma fiicno haddaad faafisina beento meel dheer ay tagay dambigaasna adoo ku socda marka halkaas sheekadii ku soo gabagabeeya wari dhamaantii waxa aan leeyahay halkaas uu dhamaaday waxaas branki ahayd wax ka jira ma jiraan ya seeday wax kale inta sharaxi kara ma jira marka ilaahna waxaan leeyahay walaashay karaal noqo wixii qalado oo ku soo gaaray iyo caay iyo aflagaadaha oo ku soo gaarto dhan halkaas forget iska dheh in wixii iska ahaayeen waxyaabo ana bulshada macnaha falcelinteedu un bay ahayd sababtoo ah Soomaalidu waa dad marna fiican dhinacna badan dhinacyo kalena ku xun dhinacyo badan ku fiican waxay jecel yihiin qoysaska dhaqmay way jecel yihiin ama faamilada isla nool way jecel yihiin wixii soo dhax galana intaan anigu ku soo gaarin de oo anigu aanan waxba ka dhihin waxaan ogaaday ninkayga intaan anigu aanan dhihin wax inay dad badan oo difaacayaan marka waxaan ka casado dadkaasi difaacay inaan waayo biriswax wax kasta bardhici karo soo ma bariq wax kasta dhici karo maanta marka hadaan warkii sii wado oo isii oo ilaana ay dhacday ninkayga dhacday babada waxaan ka casado dadka maanta ay difaacayo bari inaan waayaa sababta waxa Soomaalida waxa leeyahay beentaada buugi Soomaaliga markii la barayo waxaan ku dhageystay Cabdi Beenaale mugta beentaada hore runta dambe u baas baxda marka calaa xal adig dibaan ma ii sheegay adinkana ay fiirsada oo saas ishii wahay adii kaleeto social media dadku waashta ma iga dhigrabti macna ilaa nagu waan kamarada lagu waashtaaliyo hadii beentan aad u barbartido ka ceeshtina lacag badan ay ka soo gashtana bis waxa rabta farta doonta qori sidii hees milyan ka farta doon inaan qoro mar rabo marka fartaan doon ilaahay far wanaagsan noo qore marka ila socda hadalkan waa soo gabagabay dad badan ay qalbiyadooda dhibay dadkayga ani mar rabo qalbiyadooda wax dhibaa inaan u sheego mar rabo ani sumcadeeda wax dilaa inaan sameeyo
mar wali hore la igama baran markii ugu dambeysay markii ugu horeysay ugu dambeysay waa insha Allah aada u maasintiin intaan muuqaalka xigo ama riwaayado ama majaajilo wax kale taan kulmi doono waxaan kaga tagayaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh